ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa channelka kobcinta garaadka carruurta. haddii ay tahay marka hore soo booqato channelkeena, ha iloowin subscribe-daada kadibna aad furto calaamada gambaleelka si uu kusoo gaaro qisooyinka jimcada siin gaarsiin asxaabtaada oo jecel qisooyinka adiga ku share garayna baraha bulshada. maanta waxaan idhahnaa qisadii Cuseyr qaybtii 6 oona qaybtii ugu dambeysay. daawasho wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxay qisadeena inoo maraysay Cuseyr oo tagay xaafadiisa, waxaana hor fadhisay islaan duq ah. wuxuuna ku dhahay gurigaani ma guriga Cuseyr ba? waxaana ku dhahday haa, waa guriga Cuseyr, laakiin ma arkin Cuseyr 100 sano ka hor ayuu dhintay. ninka ayaa dhahay aniga ayaa Cuseyr ah. islaanta ayaa dhahday adiga Cuseyr ma tihid. haddii aad Cuseyr tahay waxaad samaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaad iga baryadaa in uu ii soo celiyo araggayga. waayo ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisa waa aqbali jiray. Cuseyr wuxuu dhahay ilaahay u soo celi araggeeda. islaantii waxa uu u soo laabtay araggeedii, waxayna aqoonsatay inuu Cuseyr yahay. islaantii ayaa dhahday waxaan kuu geynayaa ilmahaagii. waxaad u tagtay raggii oo sheekaysanaya, islaantii waxay ku dhahday Cuseyr ayaa soo laabtay. sidoo kale aniga ayuu ii duceeyey in uu aragga ii soo laabto. Cuseyr ayaa qolka soo galay. Cuseyr ayaa dhahay aniga ayaa Cuseyr ah, markii uu ilaahay ii dilay 100 sano ka hor kadib nafta iigu soo celiyey. wiilka ayaa dhahay adiga aabahayga ma tihid, mana ku rumaysanayay. wiilkii Cuseyr ayaa dhahay weli ma i rumaysanin. wiilkii ayaa dhahay waxaan kuugu rumaysanaa ilaa aad iiga tustid calaamadda aad dhabarka ka leedahay. Cuseyr ayaa dhahay waa tan. waxa uu tusay calaamadii oo dhabarka ka lahaa, wuuna tusay. wiilka ayaa dhahay anay ma ku aaminayo, hal wax ayaan kuugu aaminaa ilaa aad iiga tustid meeshii kutubada Towraad ay ku qorsan yihiin, waayo aabahayga bis ayaa og. Cuseyr ayaa wuxuu dhahay haa, waxaa la gaaray waqtigii la soo bixin lahaa kutubada Towraad. Cuseyr ayaa wuxuu qaday meeshii kutubada Towraad lagu duugay. wuxuu helay kutubadii Towraad. markuu arkay kutubadii Towraad wuxuu arkay in la cunay. wiilkii ayaa dhahay waxaan ognahay inay 4 ka mid ah xifdisan tahay kutubada Towraad, aad adiga ka mid tahay. Cuseyr wuxuu u bilaabay kutubadii inuu dadkii u qoro. ilaahay subxaana wa tacaala qisadan ayuu qur-aanka noogu waramay, bal noo dhageysta aayadaha qur-aanka kariimka ah. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.